Waxaan idinla wadaagaynaa sheeko xiiso badan oo ku saabsan nin oday ah oo indho-beelay, hase yeeshee xilliyada habeenkii ah markuu soconayo qaadan jiray faynuus shidan. Nin oday ah ku nool xaafad yar ayaa indho-beelay. Wuxuu bilaabay in xilliyada habeenkii ah markuu soconayo horay u sii qaato faynuus shidan. Habeenada ka mid ah ayaa mar uu bannaanka aaday cashada kadib, isaga oo sidiisii u wata faynuustiisa, waxaa arkay koox dhallinyaro ah. Dhallinyaradu waxay xaqiiqsadeen inuu ninkan indhool yahay, haddana uu faynuus wato. Waxay la yaabeen sababta, maadaama uusan waxba u jeedin. Kooxda dhallinyarada waxay bilaabeen inay ku maadeystaan kana shactireystaan odaygan indhoolka ah. Mid ka mid a dhallinyaradii ayaa u soo dhowaaday odayga kuna yidhi, duqa waad indho la'dahay oo waxba ma aragtid, haddana faynuus ayaad wadataa, sababtu maxay tahay? Indhoolkii ayaa ku jawaabay, wiilkayagow, waa runtaa nasiib darro, indhool ayaan ahay, faynuusta daaranna waxba kuma arkayo. Waxaan faynuusta ugu talagalay dadka adigoo kale oonan ogeyn in nin oday ah oo indho la'aan ah uu socdo. Waxaan diidayaa inay dadku i jiiraan. Faynuustu waxay ii fududaynaysaa dadka inay iga fogaadaan oo dhibaato aysan i gaarsiin. Dhallinyaradii waxay xaqiiqsadeen inay fududaadeen oo aynan xishoonayn, waxayna raaligelin ka bixiyeen hadalladoodii shactarada iyo maadeysiga isugu jiray. Haddaba ha degdegin, mar kastoo edeb lahaaw oo isku day inaad wax kasta ka fiirsato dhanka wanaagsan. Xaqiiqso oo ogow sababta ay wax u dhacayaan. Faham ka hor intaadan wax kasta go'aamin. Intaadan qof kale u geysan dhaawac maskaxeed, dareen yeelo. Si qoto dheer u fikir intaadan hadlin. Haddii aad ka heshay qormadan kooban, la wadaag asxaabtaada. Waxaan idinla socodsiinaya wariyaha arrimaha bulshada. Si sheekooyin iyo dhacdooyin kale xiiso badan aad u heshaan, sabscribe saar janalkan YouTube-ka. Sidoo kale la sii wadaag asxaabtaada. Mahadsanidin.